galabta nabadoonkii oo shaqaysanaya la jooga nabadoon soo dhaw galabta waxa maalinaysa bismillaahir rahmaanir rahiim farxaan waa maasata waa dhowdahay galabta waxaan joognaa macadkii baan joognaa waxaan saaka buuxinaa qolalkii oo asaaskii la dhigay baan buuxinaynaa dadkii reer Jiriiban galabta qof kama harno oday iyo waayeel iyo dhalinyaro iyo gabdho iyo dhammaan waa la shaqeynaya waxaan rabnaa 8 qol baan waxaan rabnaa inaan buuxino ilaahay idmo ciid noo si Allah noo fududeeyo laway kala ho anoo 8 jir ah dhagaxa la rukubanay ciida yaa midii ay maraysaa looma baahna marka ciyaar iyo fuleynimo looma baahna galabta haddaan reer Jiriiban waxa weeye waxaanu ku talagalay saqiir iyo kabiir ba in xoogayaga la baxno oo sadaqaysano waxa weeye marka daawanahayo waa dalkaagii baan leenahay daawanahayo waa dadkaagii waa diintaadii waa dalkaagii mahadooyoy ku dambariyano nin doorhii kugu diridha mahadooyoy mahadoqomadu ardadii iyo culimadii iyo waxa weeye galabta looma kala harin waa tabarucaad waa sadaqatu jaariya fi sabiilillah qof kasta oo islaam xarun diineedka waxaan doonaynaa inuu ka qayb galo haddii alla idmo waa sadaqatu jaariya waxa weeye tii loo baahnaa weeye diinta lagu baranayaa dadka wax lagu barayaa muslimka wax ku baranaya waxa weeye annaguna galabta haddaan nahay reer Jiriiban waxa weeye waxaanu ku talagalay saqiir iyo kabiir ba in xoogayaga la baxno oo sadaqaysano waxa weeye marka daawanahayo waa dalkaagii baan leenahay daawanahayo waa dadkaagii waa diintaadii waa dalkaagii waxa weeye qof kasta oo ka qayb gala oo islaama ajar baa ugu jira adduun iyo aakhiro hadda waxa weeye muslimiinta waxaan ka doonaynaa inay xarun diineedka ay ka soo qayb galaan haddii alla idmo annaguna waa maqlaysaani daawanayo waa dalkaagii daawanayo waa dadkaagii daawanahayo waa dadkaagii galabta nabadoonkii oo shaqaysanaya la jooga nabadoon soo dhaw galabta waxa maalinaysa bismillaahir rahmaanir rahiim farxaan waa maasata waa dhowdahay galabta waxaan joognaa macadkii baan joognaa waxaan saaka buuxinaa qolalkii oo asaaskii la dhigay baan buuxinaynaa dadkii reer Jiriiban galabta qof kama harno oday iyo waayeel iyo dhalinyaro iyo gabdho iyo dhammaan waa la shaqeynaya waxaan rabnaa 8 qol baan waxaan rabnaa inaan buuxino ilaahay idmo ciid noo si Allah noo fududeeyo dadka muslimiinta ay korona daawanayaan waxaan leenahay hadda hawshu waa bilow hawl kama daalayoon hawshu waa bilow asaaskii waa hadda la rafanaynaaye shaqa waa dhimantahay qaybtooda waa qaateen reer Jiriiban waa u jeedaan haddaan nafnahay iyo hadday maal tahay midna laba aan harin waan rajaynaynaa ilaa meesha ugu dambaysa inaan soconayno culimadii baa joogta odayaashii baa joogta saraakiishii baa joogta dhalinyaradii baa joogta culimadii baa fadhida reer Jiriiban masaaki galabta cid ka maqan ma jiro waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inaan dhammaystirno macadkaas oo bulshada reer Jiriiban ay u dhabar adeegtay oo waqti badan la soo geliyay Allah barakeeyo cid kastoo soo agaasitay waxaan codsanaynaa oo wali codsanaynaa ilaahay meesha u dambaysa arintaas inaan laga harin aad oo maasita shaqa ku taala waa isku salaamaya inta ka bootaan waa nabadoon Yaxya Cismaan Maxamed Gees Cadde nabadoon Gees Cadde oo dabcan u jeedaan galabta ciidii oo dhankiisa ka xamaalaya doorkayagii baa dhiman insha Allah taala waayahay macahadkii ayaynu joognaa oo galabta shaqo badan ka socoto saa warkaysaan dhabarkayaga macahadka Jiriiban laga dhisay agoonta iyo danyarta iyo masaakiinta loo dhisay Haragaafa waa General Haragaafa oo kamid ah waxgaradka saraakiisha iyo aqoon-yahanka degmada Jiriiban ayaa galabta dhankiisa ciid ka guray harasoo galabta maxaa meesha lagu hayaa galabtay wax wanaagsan baanu meesha ku haynaa ilaa 100 nin baanu isugu nimid halkan
ciiddii baan guraynaa dhagaxii baan guraynaa shamitadii baan guraynaa waxaanu guraynaa wax kaste oo halkaa lagu dhisahayo masaajid baa meesha ku jira dhulkan waxa weeyaan waa dhulka ardada quraan akhriska la barahayo quraanka cilmiga kale la barayay weeye waa dhul hagaagsan wixii marka wax garanaya oo islaam ah gaar ahaan Puntland hawsha weynay ka soo qayb galaan ma aha siyaasad loo dhisimayo waa arday yar oo quraanka politika loo dhismayo afmishaarnimo lagu baran mayo waxa weeyaan arday yar oo quraanka loo dhigahayo iyo masjid baanu dhigaynaa waaniga lagu ilaaban yihiin waxaan ku soo talagalay inaan ciidda guro dhagaxa guro galabta looma kala harin reer Jarriin wabillahi tawfiiq waayahay akhyaare waa maqlaysaan dabcan waxa la rabaa qaybteeda inaan qaadano maxadkan waa dhaqaaqi waana soconaya insha Allah taala idinkuna maalkiina ku bixiya anaguna maskaxdeeda iyo muruqayaan ku bixinayna aad baa u mahadsantiin